طبعا وان هبaa in dhowr jeer aad jibsi ka cuntay ama aad ka soo dalbatay halkan laakiinse caawa kama dalban doontay jibsi oo waa ay gubatay gebi ahaanba. muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa xaruntii Mr Jibsi oo aan sidaa uga fogeen isgoyska dabka Muqdisho oo dab xoogan daqiiqado ka hor uu ka kacay. waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira saaxiibada igu xiran qaybta commentigana aan ugu duceyno walaalkeenna in ilaahay uu siiyo bedel kheyr qaba. sideese looga hortagi karaa dabka sidan oo kale uga kaca goobaha muhiimka u ah bulshada? haddii aan ku bilaabo xarunta Mr Jibsi oo aan sidaa uga fogeen xarunta degmada Waaberi sidoo kalena kaabiga ku haya isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho waxa goordhow ka kacay dab xoogan waxaana uu sababay khasaare hantiyadeed. ma jirto wax khasaare nafeed oo uu dabkaasi sababay, waxaase goobta marka uu dabka ka kacaya xarunta aan ku sugnayn guud ahaan shaqaalaha, balse waxa ay qorsheynayeen in saacad kadib halka ay soo gaaraan inta uusan dabka ka kicin. xilliga habeenkii caasimadda Muqdisho inta ugu badan waxaa halkaasi isugu taga dadka xiiseeya cunista jibsiga ama baradhada iyo cuntada kale ee fudud ee cashada. waxaa la sheegay in dabkan uu sababay haan ka mid ah haamaha gaaska ee lagu kariyo cunnooyinka halkaas in ay qaraxday kadibna ay xigtay dab xoogan oo xarunta qabsaday. waxaa goobta soo gaaray gaadiidka dabdamiska oo ugu dambeyn ku guulaystay inay hakiyaan dabka si uusan ugu sii baahin hareeraha goobta uu dabka ka kacay. si kastaba ha ahaatee dhowr jeer hore ayaa Muqdisho sidan oo kale ay xarumo ganacsi ay dab uga kaceen, mana jirto isla xisaabtan dhab ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka sameysay waxa uu salka ku hayo dabka ka kaca goobaha ganacsiga. waxaase dadka ay aaminsan yihiin in sababta ugu weyn ay tahay awoodda korontada oo aan xadidnayn oo daqiiqad kasta ama saacad kasta sababi karta in dab uu ka kaco halkaasi. ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarto waan kaaga mahadcelinayaa. nabadgelyo.